بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhamaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu hambalyeynaya munaasabada Eid al-Fitr waxaan Ilaahay uga baryayaa in ummadda Soomaaliyeed uu sanadkiisa dambe ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciideeda kalena ay ku waaraan khayr iyo nabad waxaan ummadda Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho sida sharafta leh ula shaqeeyeen hay'adaha amniga bisha Ramadaan amniga shaqadiisu waa bilaaw shacabka waxaan ku codsanayaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga ciidamada magaalada Muqdisho gaar ahaan ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho waxaan ku codsanayaa inay shacabka ula shaqeeyaan si asluub leh in la ixtiraamo shacabka Soomaaliyeed in guriyaha shacabka marka la galayo la ixtiraamo dadka marka la baarayo in loo baaro si akhlaaq leh iyadoo la ilaalinayo amniga haddana waa in la gutaa waajibka ilaalinta xuquuqda ummadda Soomaaliyeed laakiin waxaan dhamaan ciidamada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciidamada qalabka sida ugu hambalyeynaya shaqada wanaagsan ay qabteen bisha Ramadaan dadaalka ay muujiyeen nafta ay badbaadiyeen shacabkana waxaan u ballan qaadayaa in dawladdeenu ay sii wadi doonto dardargelinta ka shaqeynta amniga ilaa aan ka gaarayno in magaaladu ay xasilan tahay dalku uu xasilan yahay shacabka waxaan leeyahay fadlan la shaqeeya ciidamada ammaanka u soo sheega ciidamada ammaanka haddii aad ogtihiin xog muhiim ah oo lagu joojin karo faldambeedyo mar labaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in dalkani uu yahay dalka kaliya oo aan leenahay dalkan inaan wada dhisanana inay tahay waajib waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh